madaxdii hadday qaldanto waa loo naseexayn karaa laakiin marka loo nasteexaynayo waa in markaa laga fogaadaa wixii fitno kicinaya sida nebigu sheegay sala allahu alayh wasalam oo waxa uu nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam man araada an yansaxa lidii sultaanin falaa yubdihi calaaniyah rasuulkaa odhanaya sala allahu alayh wasalam ninkii doonaya madax inuu u nasteexeeyo yaanu si caddaana oo markaa bannaanka taalla yaanu u muujinin falaa yubdihi calaaniya walaakin ya'khudu biyadihi fayakhluu bihi fain qabilahu wa ilaa adda aladii calayh ayuu rasuulku yidhi sala allahu alayh wasalam gaar buu ugu tegayaa hoos buu wax ugu sheegayaa hadduu aqbalo waa sidii wanaagsanayd hadduu aqbali waayana waajibkii saaraa waa gutay baa nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam xadiis saxiixaasaa ugu soo arooray marka waxaa la diidayaa wixii markaa kicin iyo fitno sababaya oo maadaama la diiday madaxdii muslimka ahayd walow dalamo ama fasaqaba ha ahaatee in lagu baxo maadaama la diiday wixii sababaayee keensanayey bixitaanka keensanayey iyo fitnada ayaa laga taxadiraya markaasuu nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam sidaa hoose ha loogu sheego cusmaan ibnu cafaan wakhtigiisii baa dadka qaarkood qoonsadeen oo dad qaraabadiisa ah oo qaarkood la diiday ayuu jagooyin u dhiibay siday nimay xagga hooye ka walaala ahaayeen oo weliid ibnu cuqba ibnu abi mucaayid la odhan jiray oo khamriga cabbi jiray cusmaan se aanu ku ogayn isagu khamriga inuu cabbo aanu sidaa ku ogayn oo barasaab ka dhiga kuufa meesha la yidhaahduu barasaab uga dhigay ninkaa cusmaan waa isku hooyo isku aabbase maaha khamrigii buu dabeedna cabbay isagaana barasaab kuufa ka ah isagoo cabsan buu salaaddii subax soo galay 4 ragcadood ayuu tujiyey markaasuu aziidukum ma idin kordhiyaa cusmaan markii loo sheegay oo la yidhi khamriga waa cabbay waa walaalkaa xadka ugama baajine wuxuu yidhi xadka ha laga jaro ha la jeedlo 2 markhaati baa ku furo midna wuu yidhi isagoo cabbayaan arkay midna wuxuu yidhi isagoo khamrigu ka soo kankamaya afkiisa oo khamrigii hunqaacayaan arkay markaasaa cusmaan wuxuu yidhi khamri ma hunqaacin inuu cabbay mooyaane jeedla buu yidhi cali ibnu abi taalib agtiisa joogay buu yidhi markaa jeedalo xadka ka jar xadiisku saxiixuu ku sugan yahay fii saxiixi muslim calina inankiisii xasano ag jooga buu yidhi jeedal xasanna wuxuu yidhi walli xaarahaa man tawallaa qaarahaa madaxtinimada kulkeeda uga mas-uul dhigo uga hadh iyo dhibteeda ciddii qabowgeeda tawalliyey bimacnaa jagadii maadaama innagu aynaan hayninee dee cusmaan hayo dee wixii dhibana isagu ha qaabilo cali baa u shaqaaday oo cali baa la dhacay cusmaanna waa tirinayey 40 markuu ku dhuftay ayuu yidhi ka daa haddaba marka hadduu xadka ku ogaado kama saamaxayno waa walaalkaa xagga hooye ah ka walaala ahaydeen kuma daynayn xadkana kagama baajinayn niman kaloo qaraabadiisa oo uu jagooyin u dhiibayna waa jiray cusmaan ibnu cafaanna dadka uu mas-uuliyaadka u dhiibayo khaliifo caadiluu ahaaye ijtihaad bay uga dhacday oo isaga markii waxa ula muuqatay inay aslaxda yihiin kuwan uu jagooyinka u dhiibay markaa dad baa aad uga cawday dabeedna markaa waxa weeye kacdoonkii dambe waa ka kici doona intii kacdoonku aanu dhicin ka hor baa waxaa lagu yidhi xadiiska bukhaariga usaamat ibnu zayd baa la yidhi maad cusmaan u nasteexaysid oo wax u sheegtid yaa markaasuu yidhi waan u nasteexeeyaa buu yidhi anigaan albaabkii ugu horreeyey fura anigaan doonayn inaan noqdo oo albaab fitno inaan furo anaan rabin albaabkaasoo hortay aan loo furin ayaan markaa haddana u nasteexeeyaa buu yidhi wuxuu u jeedaa albaabkaa wuxuu ka tilmaamayaa usaamat ibnu zayd in si calana uu dadka ugu shaaciyo u yidhaahdo cusmaanow waad qaldan tahay oo waxaa iyo waxaa iyo waxaa iyo waxaasaad ku qaldan tahay ee ka noqo oo dabeedna dad badan oo wax magaratiya ay maqlaan dabeedna laga yaabo dee inay yidhaahdaan taladii waa diiday oo ay qaarkood ku gadoodaan albaabku tilmaamayo inuu leeyahay waan u nasteexeeyaa duuna an aftaxa baaban lam akun awala man fataxahu kuu sheegaya waa taas laakiin waxaa u qabtaan buu yidhi haddaanan idin maqashiin inaanan u nasteexayn baa u qabtaan buu yidhi usaamat ibnu zayd baa odhanaya xibbu rasuulillaahi wabnu xibbi waa kii rasuul